roob xoogan oo dabaylo watay oo galinkii dambe ee shalay ka da'ay magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka Galmudug ayaa sababay burbur hantiyadeed waxa uuna waxyeello kala duwan gaarsiiyay in ka badan 2,000 oo guri inkastoo uusan geysan roobkan duufaanta watay dhimasho nafeed haddana waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray dadkii ku noolaa guryaha uu roobku waxyeeleeyay waxyeelada guryaha iyo dhismayaasha marka laga soo tago waxaa inta badan burburay garowgii ama geedihii ku yaalay gudaha magaalada Cadaado iyo nawaaxigeeda in badan oo ka mid ah kuwaas oo qaarkood ku dumay guryo iyo gawaari oo sii kordhiyay khasaaraha roobka gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole oo xalay ilaa saakay ku howlana tirakoobka waxyeelada roobkan uu magaalada u geystay ayaa warbaahinta u akhriyay waxyaabihii uu soo arkay saakay waxaan u baxnay kormeer subaxii hore waxaan soo kormeerinay magaalada iyo sida wax u gaareen kaamamka iyo magaalada iyo xaafadaha sida wax u gaareen aan soo kormeerinay dadkii horta kaamamka joogay aad bay u dhibaataysan yihiin kaamamkii inta badan way ku dumeen way dhibaataysan yihiin sidoo kale xaafadaha qaar magaalada 4 xaafadood ay ka kooban tahay 2 xaafadood ka mida boqolkiiba waxaan dhihi karnaa 50 guryaha dhibaato gaartay guri walba qayb jiingadi ka maqan tahay mid ay ka wada maqan tahay wixii guri ama siisa guriyihii ka samaysnaa jiingada bacweynaha oo dhamaantood jiingadooda ahaa kulli horta kuwaas way dumeen guriyihii kalena jiingadii baa ka wada maqan dadkii waa ka guuray xaafadaha roobku ku dhiftana waa xaafadihii ay deganaayeen dadka danyarta ayuu roobku ku dhiftay kaamamkii ku dhiftay waxa sidoo kale bataata baabay oo muddo ilaa 15 kiiloomitir oo magaalada isoo ku hareeraysan ka baabay geedihii qurca leey jiray oo aad iyo aad dadka nacfiga ugu lahaa oo la harsan jiray oo la daaqi jiray oo la ilaalin jiray oo dib badan laga soo maray bataata ma kansal ay noqdeen waa baabeen roobkaasi marka magaalada dhibaatada noocaas la u geystay magaalada aad iyo aad u burburtay ganacsiga wixii goobihii ganacsiga wixii hangaraha iyo wixii jiingadaha ayagoo dhibaatada gaartay laakiin annaga ma aana qiimeynba goobihii ganacsiga waxaan qiimo ku soo sameynay kaamamkii iyo xaafadaha dadku degan yahay waliba kuwa danyarta ay degan yihiin sidaas daraadeed magaaladani dhibaato weyn ayuu roobkan gaarsiiyay ugana tagay waxaan marka hore leenahay dadka wax kasta oo yimaadahay wama asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydiikum horta waxaan leenahay ilaahay loo laabto hal istighfaarto ilaahayna loo mahdiyo hadduu intaas nooga sintay roobkaana ilaa hadda khasaaro nafeed oo aan haynahay ma jirto marka laga reebo dhaawacyo dad fara badan oo dhaawacyaha jira oo qaar jabeen oo qaar ay nabaradu ku yaaleen oo qaar ay dirdiiran yihiin oo qofba si wax u gaareen laakiin ma hayno khasaaro qof dhintay wali ma hayno qof dhintay oo aan wali hayno hadda markaan ka hor ma soo gaarin laakiin dad badan dhaawac waan haynaa oo qaar hadda istaalka ku jiraan gudoomiye Tootole waxa uu hay'adaha kala duwan ee dawladda kuwa Galmudug iyo kuwa federaalka hay'adaha samafalka iyo cid kasta oo waxaysata ka codsaday in la garab istaago dadka danyarta ah ee waxyeeladu ay ka soo gaartay roobkii dabaylaha watay ee Cadaado ka da'ay marka sidaas daraadeed marka waxaan leenahay cid kasta oo dadka aan soo caawi karta waa dad dhibaataysan oo dad masaakiin ah waxaan leenahay lagala soo gaaro dawladda Galmudug dawladda federaalka Soomaaliya hay'adaha samafalka waxaan ku amraynaa deegaanka ka shaqeeya inay ka howlgalaan oo dadkan hoyga la gaaro wixii loo qaban karo loo qabto dawladda labada dawladood oo midda federaalka iyo midda Galmudug waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijkan iyo culayskan ay dadka kala qayb qaataan maadaama dawladda ay yihiin una qayladaanshaan cid kasta oo muslim iyo gaal wax la soo gaari kartaan waxaan leenahay dadkan hal la soo caawiyo caawin bay u baahan yihiin Cabdirasaaq Al Cadaala warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado